السلام عليكم. سؤال gabadha jeceshahay darteed ma uga tanaasul lahayd boqornimadaada ama inaanay ninkaad jeceshahay dartiis ma uga tanaasul lahayd boqortooyadaada laga yaabaa inaamaya ku jawaabteen badankiinu balse aan maanta la wadaago muuqaalkan gudihiisa nin boqor ah oo boqortooyadiisa ka tagay jacaylkiisa awgii fadlan haddaad nagu cusub tahay kanaalka subscribe saar soo qarna barnaamijka la gale si uu asxaab badan u gaadho waa mahadsantahay. When Britain's future king, Edward Prince of Wales, fell for a twice-married American divorcee, Wallis Simpson, their secret affair caused a constitutional crisis that would cost him his crown. On this day, the decision of King Edward VIII was awaited with anxiety throughout the empire. Edward VIII was known as the Prince of Wales when he was the heir to the throne until the death of his father, King George V. Having known his entire life that he would one day become king, Edward naturally succeeded his father and became King of England in January of 1936. However, about 5 years earlier, Edward had met an American woman named Wallis Simpson who would change the course of his life and the royal house of Windsor forever. soo dhawo mar kale bilowgii sodomiyadii waxa waa Amir Edward oo markaas qarka u saarnaa inuu noqdo boqor oo kula kulmay Wallis Simpson markii uu horeysay xaflad ay qabatay mid kamid ah marwooyinka magaca ku leh bulshada waxaana Wallis ay markaa marwo wahayd in adeerkeeda loo magacaabo Wallis Simpson haddana iyadoo isaas tahay waxay Wallis qabsatay shashada amiirka yacni faano qalbigiisa u dhacday waxaanu arkay inay tahay gabadh qurux badan maskax badan soo kan firfircoon yana hadalka ugu daalay isaguna waa ka helay dhankiisa inta kadibna waxay Wallis ku casuumtay amiirka iyo odageedaba casho waqtigaas laga soo bilaabana waxay Edward iyo Wallis Simpson ay noqdeen saaxiibo isku dhow bilowgii 1934 waxaa bilaabmay warar iyo tuano lagu weeraray labadoodaba waana waqti ay qoyska boqortooyaduna dareemeen in xiriirkooda saaxiibtinimo ka weyn yahay ruuxna saaxiibtinimo ka weyniyo balse haddana amiirku waa ka biyadiiday tuhunkaas isagoo sheegay inuu kaliya saaxiib leeyahay haweeneydaas bartamaha sanadkii 1936 ayuu Amir Edward la wareegay xukunkii waxa uu noqday boqorka rasmiga ee boqortooyada Ingiriiska soo qaatay magaca Edward VIII oo macnaheedu yahay boqorkii sideed ee magaca Edward VI kadib markii uu geeriyooday aabihii boqor George isla waqtigaas ayayna Wallis Simpson furitaan ka dalbatay in adeerkeed Irensad say xor ugu noqoto xiriirkeeda boqor Edward inkastoo aanay iclaamin balse waxa guurkooda hor istaagay caqabad aad u weyn taasoo ahayd in xeerka reer boqol ama dhaqanka reer boqol uu yaal aanu ogolayn in boqorku guursado gabadh carmal ah halka Wallis ay tahay haweeney laba nin soo martay oo in adeerkeed kor waxa qabay askari Mareykan ah oo lagu magacaabo Spencer Jr. kadib markii uu faafay warka sheegaya furitaanka Wallis Simpson wuxuu wasaarihii Ingiriiska waqtigaas waa Stanley Baldwin oo boqorka uga digay waxyaabaha ka dhalanaya xiriirka gabadhaas la leeyahay waliba waqtigan oo tuunka saxaafaddu uu cirkas ku sii shareeray waxaan rasaaruhu kula taliyay boqorka inuu ku dhiirigeliyo Wallis inay joojiso dalabka furitaanka ka doonayso in adeerkeed say uga hortagaan saxaafadda oo waqtigaas qoraysay in furitaankeedu uu sabab u yahay xiriirka ka dhaxeeya iyo boqorka balse Edward uu diiday taladii uu soo jeeday wasaarihiisu ilaa waan wax jecel markii furitaanka soo dhamaadayna waxay Wallis noqotay waxa qoriyaatay saxaafadda Britain ay ka hadasho iyo ku tuhmay in Edward dartiisa odageedii u khiyaantay oo iskaga furtay halka iyaduna ay isku difaacisay in odageedu khiyaamay oo dumar kale ka hoos waday oo khiyaanadaas ay keentay furitaankan boqorkuna aanu shaqo ku lahayn arrinkan gabagabadii wuxuu boqor Edward u yeedhay ra'iisul wasaarihiisii isagoo u sheegay inuu go'aansaday amaniyeystay inuu guursado Wallis dabcan uu ka diiray ra'iisul wasaaruhu arrinkaas dhaga kalena hooyadiis boqorad Mary ayaduna kula talisay inuu gabadhan iska dhaafo oo ahmiyadda siiyay maamulka boqortooyada aan qoraxdu ka dhicin balse Edward wuxuu ku adkaystay go'aankiisii waxaanu doorbiday inuu ka tanaasulo kursigiisa si uu helo chance uu ku guursanayo gabadhii uu jeclaaday waxaanu kursigu u baneeyay walaalkiis Albert oo ah odayga dhalay boqor Elizabeth II oo aad wada garanaysaan waxaanu boqor Albert qaatay magaca George VI oo imika garanaysaan waxa loo jeedo balse Edward waxa la siiyay teatarka Dutch oo ah teatarka hooseeya boqorka waxa laga dhigay Dutchka magaalada Windsor oo xilliga ahayd tuulo waxay dhacdaa koonfur bari England sanadii 1937 ayay ku aqalgaleen magaalada Paris iyagoo dhigtay xaflad waqtigaas qabsatay indhaha caalamka oo dhan balse hal qof oo ka tirsan qoyska reer boqor kama soo qayb galin xafladaas inkasta oo inuu qoysku raali ka yahay falkaas uu sameeyay haddana taasi kama hor joogsan Amir Edward inuu sii ilaashado booska ku dhex leeyahay qoyska iyo taladiisiba
waxaana markaa loo magacaabay badhasaabka Bahamas oo waqtigaas England ay gumaysanaysay. haddaba su-aasha ay tahay in isweydiin waxa weeye talow Edward maalin ma ka qoomeeyey ma ka murugooday ma ka shaleeyay go'aankaas uu qaatay. guurkoodii kadib waxay la kulmeen dhaleecooyin aad u daran. waliba Wales waxa iyada u dheereyd in xataa saxaafaddu ku tuhuntay inay tahay basaasad u shaqaysa Jarmalka ama Naasiyiinta. waxaanay wargeysyo badan waqtigaas qoreen inuu Edward dhammaanka noloshiisa ka qoomeeyey go'aankaas uu qaatay, balse waxay qow tahay inay nolol fiican wada qaateen. waxaanu Edward dhintay 1972 isagoo xaaskiisu garab joogto. war markaa idin sii weydiiyay dhamaadka barnaamijka jacayladan dartii ma uga tanaasulin wax qiimo agtana kale, yacni muhiim ah inaad boqor tahay, waan ogahay badan inaad boqor ahayn, laakiin wax agtaa qiimo ku leh ma uga tanaasulay sadoo hesho cidaad jeceshahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.